waa subaxnimadii hore oo gawaabari waxaanu u jarmaadnay deegaanka Yurowe oo burco kaga beegan dhanka bari masaafo ahaan wuxuu u jiraa burco 18 kilomitir waxaana loo sheegay inay ku nool yihiin dad yowdan yar ah oo xaaladooda nololeed aad u hooseyso waxaad wajigooda ka dheehanaysaa inay yihiin danyar la dayacay waxay noo sheegeen kuwa dayacay inay yihiin kuwa ay doorteen iyo kuwii u ololeynayay kuwa hadda hoggaanka haya waxyaabaha ugu badan ee ay ka cabanayaan ayaa ah baahiyaha aasaasiga ah ee arrimaha bulshada waxay tilmaameen inay yihiin danyar noloshooda baahiyo kala duwan la soo darseen waxay tilmaameen in ay halkan ku nool yihiin danyar tabaaleysan oo ay ka mid yihiin kuwa cagaha ka fadhiistay kuwa indhoolayaal kuwa da'ah kuwa xoolihii ay dhaqan jireen abaartii ka laysay iyo sidoo kale kuwa ay ka mid yihiin kuwii u soo dagaalamay calanka Soomaaliland harsate ee ay kuwa hoggaanka u haya ku dayaceen dhawaaqa bulshada reer Yurowe ayaa sidan u dhignaa xuduudka kama shishayno buuraguntoodna ma naalo wadadii miidhalkaanu naale gobolka Togdheer NDB baanu waxna ma hayno waxaanu leenahay oo sheegaynaa Muuse bixi ugu noqonayna ayaamaha iska wadwado dunidu waa dhowdahay nimanka u dhashay Yurowe ee dhagaha naga furaystayna wayno qiyaama baaqan xukuumadda u dirayna waxa weeye xukuumadda xaq aanu leenahay ama aakhiranu ka helay ama dunyada adduunka ka weynay aakhiranu ka helay qiyaamaanu kula sugaynaa maalinta qiyaame ayaanu kula sugaynaa waxaad moodaa inaynu wixii aynu soo qabanay oo dhan buugaba laga saaray waxaan arkay buug Suulaayo xukuumaddiisii xilliga ay shaqeynayay ay qortay wax qabadkeedii ku qortay wallahi Yurowe kuma jiro waa arkaysaan oo biyo male wax alla wax dawladdaasi noo qabatay ma jirto mid sare mid hoose gobol madaxtooyo meel waxba kama helin marka waxa jirta dayac badan magaaladan ka muuqda oo runtii kuwii odayaashii iyo ay islaamuhu ka hadlayeen ba ka jirta meesha joognaana waxa weeyaan waa magaalada Yurowe halkan aanu ka hadlaynaa waa berigii hore waxa la oran jiray Yurowe imikana dulman baa la yiraahdaa dulman sababta ay magaca kula baxdayna waa maamulka jira ee Soomaaliland wax alla wax adeeg bulsho ah oo ay shaqaba ku leedahay ma jiro bari waa noo dhaafaa raashinku gaariga qafilanana dhaafayo la rogayo ilaahayba u tirsan waxna lagu suufay intaasoo sanado dawladnimo iman caawimo laba keenin barasa ma iman wasiir ma iman biyo ma lihin sirfayn ma lihin aad iyo aad bay u dayacantahay ama hoosana loo eego ama wala hoodiska hana laga daayo walaalayaal annagu dawladna wax kuma qabno maxaan idhahaa hay'adana wax kuma qabno wadada laamiga aanu naal indhii un baa nagu dheeraaday baahiyaadka ay ka cabanayaan bulshadani ayaa ku soo aadaya xilli lagu jiro xaalado adag oo ay ka mid yihiin kala go'daanka uu keenay cudurka coronavirus tabarucaadka ay mudneed in la gaarsiiyo bisha barakaysan ee Rabadaanta oo ilaa hadda cid ka socota xukuumadda hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa ururada arrimaha bulshada aanay soo gaarin reer Yurowe waxay baaq u direen dhammaan bulshada in reer Yurowe xaalad adag ay ku jiraan gurmadna ay u baahan yihiin Cabdiqani Baafo RTN magaalada Burco